taniyo bilowgii bini'aadamku waxay miciin bideen inay qalalaaso ku xalliyaan khilaafkooda. haddana wakhtiyo badan dadka adduunka oo dhan waxay isku dayeen inay xadidaan arxandarrida dagaalka. dareenkan bini'aadanimo ayaa horseeday axdiga koowaad ee Geneva 1864 iyo dhalashada xeerka caalamiga ah ee aadannimada casriga ah oo qoraya xadidaadda aasaasiga ah ee ku saabsan habka loo dagaalami karo. xeerarka caalamiga ah ee dagaalka ayaa ilaalinaya kuwa aan dagaalamaynin, sidoo kale kuwa aan awoodin inay sii dagaalamaan. si tani loo sameeyo, had iyo jeer waa in la kala sooco cidda ama waxa ay tahay in la weeraro iyo cidda ama waxa ay tahay in la badbaadiyo, oo ay ugu muhiimsan tahay in dadka rayidka ah aan marnaba la bartilmaameedsan karin, haddii la yeelana ay tahay dembi dagaal. markay tuuladeen soo galeen waxay ku qaariyeen inay dil doonaan qof kasta. aad ayaan u baqay, duurka ayaan ku orday si aan isku qariyo. waxaan maqlay hooyaday oo cabaadaysa. waxaan u malaynayay inaan dib dambe u arki doonin. waa in la sameeyo taxadar kasta oo suurtagal ah si looga fogaado dhibaateynta dadka rayidka ah ama la baabi'iyo waxyaabaha muhiimka u ah badbaadadooda. waxay xaq u leeyihiin inay helaan caawimaad ay u baahan yihiin. xaaladda maxaabiista weligay kama welwelin. dadka isaga oo kale ayaa sabab u ah dhimashada walaalkay. wuxuu ahaa cadow, waxbana iima ahayn, laakiin waxaan fahmay in markuu xabsiga ku jiro uusan waxba qaban karin. aniga ama qoyskayga wax cabsi ah naguma hayo. xeerarka dagaalka waxay mamnuucayaan jirdilka iyo qaababka kale ee sixin ula macaamilka maxaabiista. wax alla wixii markooda hore ay ahaayeen waa in la siiyo cunto iyo biyo, loona oggolaado inay la xiriiraan kuwa ay jecel yihiin. tani waxay dhowraysaa sharaftooda kuna haynaysaa inay noolaadaan. shaqaalaha caafimaadka waxay badbaadiyaan nolol, mararka qaar xaalado aad khatar u ah dhexdooda. dhowr dagaalyahanno labada dhinac oo aad ugu dhaawacmay dagaal culus ayaan u qaadnay isbitaalkii ugu dhowaa. askari ayaana halis geliyey kontaroolka asigoo doonayo inaan u daaweyno ciidankiisa keli. wakhtiga wuu nagu yaraa, waxaana ka cabsaday inay wada dhintaan. shaqaalaha caafimaadka waa in loo oggolaadaa in hawshooda ay gutaan. waa in laanqeyrta cas ama bisha cas aan la weerarin. kuwa buka ama kuwa dhaawaca ah waxay xaq u leeyihiin in la daryeelo iyadoo oo aan loo eegaynin dhanka ay ka tirsan yihiin. horumaridda farsamada hubka waxay xitaa ka dhigan tahay in la dabaqo xeerarka dagaalka, sababtoo ah hubka qaarkiis iyo hababka loo dagaalgalo ma kala soocayaan dagaalamayaasha iyo dadka rayidka ah. waxaa la isku raacay in isticmaalkooda la xadido. mustaqbalka, dagaalada waxaa laga yaabaa in lagu dagaalamo aalad si buuxda iskood u shaqeeya. laakiinse nuucan oo kale ma yeelan karaan karti ay ku kala sooci karaan bartilmaameed ciidan iyo qof ay tahay inaan la weerarin. iyadoo aan loo eegaynin sida hubka uu horumarsan yahay, waxaa laga maarmaan ah in ay la jaanqaadaan xeerarka dagaalka. xeerka caalamiga ah ee bini'aadanimada wuxuu ku saabsan yahay in la sameeyo xulasho ugu yaraan dhowraysa sharafta bini'aadanka xilliyada dagaalka, xaqiijinaysana in suuragal noqon karto in mar kale dib loo wada noolaado marka mirta ugu dambaysa ee rasaasta la rido.